بسم الله الرحمن الرحيم ujeedada casharadu way ka ballaaran yihiin inuu qofku halabuur noqdo laakiin ugu yaraan qofku wuxuu noqon karaa qof faaleeya suugaanta oo kala garanaya waxaan isku dayeynaa inaynu dhaxalumada uga tagno ama waxtarde ah laynagu xasuusto ummaduna ay wax ka baran karaan casharkeennan labaad waxaynu ku sii anba qaadaynaa afafkii oo qaybtii koowaad ama afka Soomaaliga iyo faaladiisii oo qaybtii koowaad wax kaga jireen luqadaha adduunka waxa loo qaybiyaa boho iyo kooxo kala gedisan waxa jira luqado door ah oo lagaga hadlo Yurub iyo Aasiya oo la isku yiraahdo Indo-Europeans waxa ka mid ah Ingiriisida Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga oo lagaga hadlo Yurub waliba dadkani dad xiriir la bay ahaayeen oo isirahan ama qaybsamay oo luqadahoodu aad bay isugu dhow yihiin luqadaha marka lagu daro kuwaas ee lagaga hadlo qaar ka mid ah sida Urduga iyo Bashtuga oo iyadana lagaga hadlo baqaybo Pakistan iyo meelaha Urduguna waa luqada ay ku hadlaan Hindi iyo Pakistan Bashtugana qaybo ka mid ah Pakistan iyo Afghanistan iyo laga hadlayo Farisiga oo Iran ah marka inaha la isku daro waxa la isku yiraahdaa Indo-Europeans ma ogtahay Hindiga Punjabi ku nooli inuu kaaga dhow yahay afka Ingiriisiga oo waligiiba Ingiriisiga hajijabiyo ama Soomaalidu ha tiraahdo af Ingiriisigu waxay ku dhalatay Allahumma maabahe Ingiriiska ku dhalatay Mareykanka ku kobcday Afrika ku timo ay ku xanuunsatay Hindiyana way ku dhimatay way yiraahdeen marka luqadaas waxa la isku yiraahdaa Indo-Europeans waana luqado xiriir leh oo isaga dhow luqadaha kale Soomaaligu wuxuu ka mid yahay luqado la isku yiraahdo Afro-Asians waa luqado laga hadlo Afrika iyo Asia iyaguna waxa ka mid ah Hawsaha oo ay ku hadlaan dad fara badan oo Nigeria iyo galbeedka Afrika ku nool Carabida luqada Yuhuudda Sawaaxiliga afka Oromada Anfarta Amhariga waxaas oo dhan waxa la isku yiraahdaa maxay Afro-Asians luqadaha loo yaqaano Afro-Asians waxa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaa waxa la kala yiraahdaa Hamato iyo Semitic qaybta luqadaha Semitic la isku yiraahdo waxa ka mid ah Carabiga iyo Amhariga iyo Yuhuudda Carabiga Amhariga iyo Yuhuuddu labadu saddexaasi waxay ka mid yihiin luqadaha la isku yiraahdo Semitic halka ma ka arkaysaa in Xabashidii iyo Yuhuudduba ay afahaan inooga dhow yihiin jaamacadii Carabta ama Carabtiina waynu ka tirsanay nasabada iyo diinta iyo afka iyo waa kala laba waayahay qaybtani waxay ku fadhidaa sida aan filayo labadii wiil ee uu dhalay Nabi Nuux alayhi salaam ee kala ahaa Ham iyo Sam waa kii Ilaahay halaagay dadkii la noolaa Nabi Nuux marka laga reeban yaro kooban oo doon fuushay doontaasoo Ilaahay uu biyihii cirka iyo dhulkaba ka yimaanay ku badbaadiyay laba wiil oo Nabi Nuux dhalay ayaa aad u tarmay lana sheegaa in dadkan adduunka maanta ku nool ay ka soo jeedaan labada wiil waxa la kala yiraahdaa Ham iyo Sam marka qaybtaas Semitic ee Sam ku arooraysa waynaga leeyahay Carabiga iyo Amhariga iyo Yuhuudda ka mid ah Soomaaligu wuxuu ka mid yahay qaybta la yiraahdo Hamatic waxaana ku jira luqado ay ka mid yihiin Sawaaxiliga Anfariga Oromada luqadaha Koonfur Afrika lagaga hadlo ayaa ka mid ah qaybta Hamatic qaybtan Hamatic ee afka Soomaaligu ka tirsan yahay wuxuu u sii qaybsamaa laba qaybood qaybta Hamatic laba qaybood bay u sii qaybsantaa kuwaas oo kala ah Cushitic iyo Bantuga waxa ka mid ah afka Sawaaxiliga iyo luqadaha South Africa oo kale ama Koonfur Afrika lagaga hadlo afka Soomaaligu waxa uu galaa qaybta Cushitica loo yaqaano
kushidiku inta badan waa af ama afaf luqado lagaga hadlo bariga Afrika iyo geeska Afrika waxa kamid ah canfariga waxa kamid ah oromada waxa kamid ah afka loo yaqaan booranta iyo raydiilaha iyo saahuuga oo lagu tilmaamo afafka si dabar go'ay oo waxa ku hadlo dad ku nool waqooyiga Kenya oo ay Soomaalida qaarkoodna uba yaqaanaan inay Soomaali yihiin afka Soomaaligu qaybtaas kushidiga ayuu ka sii mid noqdaa xiriirka la yaab kale ee afafka Carabiga iyo Soomaaliga oo kala ka dhaxeeyo waliba Amxaariguna kala mid yahay luqadii Amxaariga la iga fiican yahay ku hadalkeedii waxa jira ficilo tusaale ahaan ay iska shabahayaan Soomaaliga iyo Carabigu Amxaariguna uu kala mid yahay waxa weeye waxa kamid ah tusaale ahaan markaad ereyga tiraahdid yaqaan iyo uu ku bilaabmaya yaqaan markaad ka hadlaysid qofka kaliya yaqaan يعرف تقان تعرف أقان أعرف نقان نعرف سوما كل سيدا يادا يتادا ينادو أي ميدو والبا كوكو هبون وقو بيغميسو يال يقيم آل وحان آلا أقيم وحان نالا نقيم وحي تالا تقيم سؤال كان ما ركتان يهي با كميدا يهي وحو يهي يكون وحان أهي أكون وحي تهي تكون وحان نهي نكون يمي با كميدا ويمي ياتي ويتمي تاتي وانو نمي ناتي وان إمي آتي وحا كميد يري وحو يري يقول وحي تري تقول وحان إري أقول waxaanu nidhi naqulu dadka afka Amxaariga aad ku yaqaanana way soo baari doonaan shantaas ficil iyo sida ay ku noqonayaan afka xiriirka ka dhaxeeya luqadaha kushidiga ee Soomaaliga iyo Canfariga iyo ay ugu waaweyn yihiin waxaad ka garanaysaa sida tiradooda tirsiimo ay iskaga midka yihiin walaga yaabaa in midiya laba ay sidaan sheegay ay ka duwanaato laakiin ugu dhawaan waa sidan oo tusaale ahaan oromadu markay tiradooda tirsiimo sheegayso 1 2 3 4 5 6 7 beeneen Soomaaliduna 1 2 3 4 5 6 7 marka ay sii kordhinayaan waxay oranayaan toman labaatan soddon afartan konton shantan baan u jeedaa waxay oranayaan oromadu lamaatan soddon afartan shantan oo waad arkaysaa in waxa farqiga halkaa ka keenaya uu yahay markii ay shan yiraahdeen hadhow wuxuu bay yiraahdeen kontonkiina shantan laakiin Soomaalidu inta kale oo dhan waa la mid 2 20 3 soddon 4 afartan markii aynu inagu shan halkan ka nidhi maxaynu halkanna konton u nidhi aynu shantan oo dhan way shantan ama shantan halka waxaad ka arkaysaa Soomaaligu in uu dhinacna xiriir kale leeyahay luqadda Canfariga dhinacna uu xiriir kale leeyahay luqadda Oromada oo Canfartu numberka shanaad waxay yiraahdaan اللهم صل على محمد كونتون كنا waxay oranayaan kotom marka Soomaalidu shantiina waxay kala mid noqdeen Oromada kontonkiina waxay kala mid noqdeen halkee Canfarta ayay kala mid noqdeen afka Soomaaligu waxa uu leeyahay dhawaaq u eg afka Carabiga qoraalkiisuna waa farta loo yaqaan Laatiiniga Laatiinku waa afkii ay ku hadli jireen Roomaaniyiintii hore ama ancient Romans afka Soomaaligu waxa uu ka kooban yahay 21 shibane iyo 10 shaqal oo kala 5 shaqal oo dhaadheer iyo 5 shaqal oo gaagaaban haddaba shaqaladaas iyo shibanayaashaas kala gedisan ee lagu ururiyo
ereyada ku jira ama xuruufta afka Soomaaliga waxa lagu soo kooba kelmad uu baray macalinkaygii dugsiga hoose dhexe afka Soomaaliga iyo taariikhda macalin Xasan Axmed Jaamac waxa uu sheegay macalinkaygu in kelmadan uu curiyay baan ka weynaa Allahu naxariistee Cabdilaahi Suldaan Timacade kelmadaas waxa weeye sheekheena wiilkiisa curad gabadhu qabi jiray fooxlaan ma heesi karto sheekheena wiilkiisa curad gabadhu qabi jiray fooxlaan ma heesi karto muhiimadda ereygu waxa weeye in dhammaan shaqaladii iyo shibanayaashii kala duwanaa ee ku jiray afka Soomaaligu laga helo dhamaantoodna waa laga helayaa kelmadaas oo ku dhawaad 20 sano ka hor macalinku baray waan xigtay intii aan faafin karayna waan sii faafiyay bari dhaweyda dhowr sano ay ka soo wareegeen ba macalinkaygii dib u weydiiyay horta macalin ereygii nooca ahayd barigii noo sheegtay ka war maxaan ka garanayaa buu yiri marka de aqoontii saasun baa la isaga dhaxlayaa in la sii faafiyo oo qofku wixii uu sii gudbin karo umada uu sii gudbiyo ayay tahay afka Ingiriisiga oo kale ereyadiisa ama shaqaladiisa iyo shibanayaashiisa waxa lagu ururiyaa xuruuftiisa isagana kelmad caan ah oo ah the quick brown fox is jumping over a lazy dog the quick brown fox is jumping over a lazy dog dacwada dhaqsanaysa ee midabkeedu buniga yahay waxay ka dulboodaysaa ay caajisa the quick brown fox is jumping over a lazy dog dhamaan xuruuftii ku jirta afka Ingiriisiga ama alfaabeedkiisii higaadiisii halkaas laga helayaa xuruufta afka Carabiga waxa lagu soo koobaa iyagana kelmadii aynu higaada inta badan ku soo dhiganay ee abjad huwas kalaman saafas qarashad taadiq kaas lagu soo koobaa sidoo kale xuruufta afka Carabigu dhamaantood waxay ku kooban yihiin aayadda Quraanka ah ee ugu dambaysa suurad Fatah محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أفكا الصوماليغو وحو يستاهلاه إن لو برتو أو لو عصرية أو لو ديكتو سيلا ميدا أفكا عالميغا عربيغا إنجليسيغا وليبا وا أفهدنا وقون waxyaabaha ay afafku ku kala duwan yihiin su'aalahan ee Carabigu laga yaabo inuu kaga fiicnaan karo Soomaaliga iyo Ingiriisiga wax ka mid ah afka Carabigu wuxuu leeyahay mufrad oo ah kali iyo musanna oo labaale ah iyo wadar oo jamac ah koowna uu sheegaya labana wax waa loo oran karaa annagoo laba hawasaan iyo jamac laakiin Ingiriisigu iyo Soomaaligu wuxuu leeyahay single iyo plural ama kali iyo wadar marka waa wax uu afka Carabigu kaga fiican yahay afafka kale magacyaalada Ingiriisigu waa 7 ereyga wi mar waxa la adeegsadaa iyadoo qofka la hadlayaa uu ku jiro waa inclusive wi oo waxa weeye inagu saasaynu sameeynay inagu waynu soo ciyaarnay inagu marna waa exclusive oo kuma jiro qofka la hadlaysaa anagu waan soo ciyaarnay anagu halkaas aanu tagnay anagu waxba aanu akhrisanay anagu arday baan nahay way inaga marka waxa inoogu jira anaga iyo inaga labaas oo balbalaaran bay inoogu jira ereyada kale ee afka Soomaaligu hodanka ku yahay ee la xuso wax ka mid ah magac bixinta xagga waqtiga oo kale shalay bari saadambe saakuul sadataal washan magacu isdaba yaala Ingiriisigu hadii uu tomorrow berito wuxuu qoranayaa hadii uu kula balamayo the day after tomorrow bari kadib the day after tomorrow halka aad ka haysatid saadambe ee saakuul ka haysatid maalintii labaad saadambe maalintii saddexaad saakuul sadataal maalintii afraad ereyada kale ee uu afka Soomaaligu hodanka ku yahay la sheego wax ka mid ah magac bixinta xagga hooyada kale waa hooyaday hooyadeedu ayeeyaa waa ayeeyay hooyadeedu macooya waa ayeeyay hooyadeedu oo aboota ah waxyaabaha kale ee uu hodanka ku yahay wax ka mid ah magac bixinta xagga ilkaha oo kale afka Ingiriisigu markay foolasheen iyo dhoolaheena tilmaamayaan waxay koonayaan incisors waa foolasha iyo dhoolaha laba foolo sare iyo laba fool afar iyo dhoolaha isku sideed bay noqon inaguna waxay noqonaa waa foolashii
iyo dhoolihii marka xagga magac bixintana meelo fara badan oo uu ku fiican yahay afkeenu ayaa jira waxyaabaha kale ee afkeenu ku fiican yahay waxa ka mid ah inay jiraan ereyo fara badan oo iskood isu macneeya ereyaal fara badan oo ku abtirsada afka Soomaaligu waa qaar ismicneynaya ama meel la garanay ka soo jeeda tusaale ahaan hooyo waxa lagu oranayaa asal ahaan waxay ka timi halkii hooyso waa tii dadka ku hoynaysay dhaxanta kulka cidlada waa tii wehelka ahayd ee hooyga ahayd ereyga gashaanti waxa lagu oranayaa waxay ka timi gashaahanti oo gabadha la guursadaa waxay hanti u tahay bay ku leeyihiin oo dhiigeedii dhaqankeedii nolosheedii intii badneed qaadanaya reerka guursada marka waa gashaahantiyo reerka gasho ayay hanti u tahay ereyada kale waxa ka mid ah ergo asal ahaan waxay ka soo jeedaa bay Soomaalidu tii ereygeeyo waa kuwa ereyada kala geeya ergo wixii la farana way qaadaa baa la yiri wixii loo dhiibana way cuntaa marka waa ergo waa ereygeeyo wiilku asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa baa la yiri wiilka indhaha sababtoo ah wiilashu waa qaar aad iyo aad loo jecel yahay marka budiisha ayaa loogu magac daray bal idinku soo baadha hadaba halkay gabadhi ka soo jeedaan uma sheegaya habar waxa la leeyahay asal ahaan waxay ka soo jeedaa habara oo waa tii dadka baraysay habka loo noolaado habka loo dhaqmo iyo waxyaabo fara badan oo kale ereyga dhurwa waxay ku leeyihiin asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa dhurwa waa erey lagu habaari jiray waraabo markuu soo dhaco oo dhurwa micnaheedu waa carruurwa ayaa iyadana la yidhi lacag asal ahaan waxay ka timi baa la yidhi iyaduna lacag wax kasta waa tii lacagta ahayd ee goynaysay ee jaraysay markii dee meelaha waqooyiga lacagta laga isticmaalay ba halkaa reer hawdka iyo dhulka dawlad deegaanka ayaa la geeyay baa la yidhi lacag oo geeli baa la yidhi lacagta naga siisto oo ma lacag baa dee sidaanu idinka siisanaa bay yidhaahdeen oday asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa bay yidhahdeen isaguna waa kii odayga reerka deerka u ahaa ee oodayay ee ku xeernaa libaax waxa la yidhi asal ahaan markuu libaax soo dhaco xoolaha qaadaa la oran jiray labax deed waa libaax oo saasa sodo iyaduna waxay ka soo jeedaa baa la yidhi sodaaha waa tii reerka cusub deerka ku ahayd ee dhisaysay ee magaranaysa sodaha inta badan dhismaha reeraha u xil saaran calool baa ka timi calool ayaa iyaduna jirta ereyga calool waa laba erey la isu geeyay waa cal waa wax la calaaliyay ama waa hun oolna waa halkii uu yaalay marka waa halkii hunku la dhigayay ereyada kale ee Soomaaliga ah sida wanaagsan loo micneeyay waxa ka mid ah sabool dadku barigood reer guuraabay ahaayeen way guurguuri jireen markay xoolaha leeyihiin oo meeshii barwaaqada iyo dooga marka qofku markay xooluhu ka dhamaadaan buu deemeelu iska degi jiray oo guurguuri jirin saasa loo oran jiray waa sabool waa qofkii meesha cayimanun ku sugnaa isla markaana aan guurguuri jirin fandaalku waa kii dee cuntada lagu darsan jiro waa faradhaan bay yidhaahdeen oo faruhu dhaamaayo dee halkii midaan dee faraxanilba faraha kala geli lahaa ama magaranaysa habdo waxba wasakhi kaa soo gaari lahayd faruhu dhaamaa bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen oo kale dumaashi asal ahaan waxay ka soo jeedaa dibumaashi waa dibumaalid waa gabadhii dee uu ninku dib u guursanayay ee uu dhaqayay marka uu walaalkii geeriyoodo dee cid horreyn doosho mooye laakiin waa gabadha haddii uu walaalkaa dee geeriyoodo qorshaha way ku jiraysaa ereyada kale ee Soomaaliga la micneeyo waxa kamid ah buraanbur oo kale oo wuxuu ka soo jeedaa buraanburku waynu ka arki doonaa faahfaahintiisa suugaantee ma aha mid ku aroora xaraf kaliya sida da ama ma ama sida raac Soomaalida suugaantu ee islaantu ja iyo na iyo ta iyo waxay doontay ka soo ururin jirto alama joog dheer janaankii magaalada janako waro jacayl way qaybo fara badan oo ka mid ah luqadda afka Soomaaliguna waa ereyo qalaad oo waxay afka Soomaaliga soo galeen markii afka Soomaaligu uu xiriir ganacsi ama mid diimeed ama mid darisnimo ama mid gumaysi la yeeshay luqadaha kale
luqadaha aadka inoogu jira waxa ka mid ah ingiriisiga oo kale ayaa afkeena markii gumaystuhu yimi carabida xagga diinta islaamka inoo soo raacday urduuga oo isaguna indiya bakistan lagaga hadlo talyaaniga oo dee waa halkaa garanaysa soomaaliya iyo gobolladii uu gumaysan jiray faransiiska ayaa isaguna ka mid ah oramada luqado fara badan oo tusaale ahaan dee ereyada afka qalaad inaga soo ergiyey waxa sabab u ah inagoo aan lahayn wixii baa laga yaabaa inay inoo yimaadeen soo tusaale ahaan hotel video book walow dhigana aynu isticmaalno school waa dugsi walow inahna waa school dhakhtar haddana waa dhakhtar dee carabiga oo kale ereyada inaga yimi waxa ka mid ah khudrad sako walow afka soomaaliga sakadu ay dago ku tahay muus sharaab cilmi markab idaacad hawo samo albaab inkastoo ereyo kalena aynu heli karno waxyaabaha kale ama ereyada aynu soomaaliga u haysan karno ee afaf kale inagaga yimi waxa ka mid ah haddii aad indiya bakistan tagtay baraf maalin baan maqlayo baraf waa show barafkuba wuxuu ahaa wax yaa inagu dee dhulkeenu ma u qaboobi jirin shaw xaggaas inagaga yimi hindidii bakistaaniintu barafun beeranayaan gaari waa isaguna halkaa bandow waa urdu waa bandow sambusana saas lama sambusa un badanaysa deedo barasaab dee waa gudoomiye gobol baynu inu isticmaalnaa laakiin waa laba erayo laysu geeyo micnihiisu iyo badhaa waa weyn saabna waa mudane badhaa saab seer marka langare ayaa isaguna ka mid ah ereyada halkaasi nagaga yimi waxaynu ognahay in lacagta dee rubiga laga isticmaali jiray somaliland ama dhulkii soomaalida ingiriisku uu gumaysan jiray oo tusaale ahaan ingiriisku markii uu daraawiishta ku duulaysay uu sayid maxamed cabdulla xasan u jabiyo dadka awr buu ka ururiyey uu saariyey colkii markaa soomaalida ahayd ee raaciyey ee ingiriiska deeto reerkii markii sayidkii laga adkaaday diyaaradihii lagu jabiyey uu daraawiishta meesha ka baxday reerkii awr laga qaadayna rubad baa la siiyey kii laba laga qaadayna laba rubadood markaa lacag qaali ah ahaa dee sida ay sheegayaan dadkii xilligaas noolaa waaye sidoo kale waynaga dee hayna sheekada caanka ah ee ninkii sheekha ahaayee odhan jiray dadka aan dhalin baan u ducaynaya gabadha ay rubadda ula timi intuu lacagtiisa lagu yidhi ma kula tahay heblaayo inaad rubad wiil ku dhalayso yani inta rubad lagugu duceeyo soo kordhi bayd micnaheed moogta afka sawaaxiliga oo kale yaanye iyo kumi ayaa ka mid ah kumi micnaheedu waa 10 meelaha qaar baa soomaalidu 10 ahaan uga adeegsataa luqadda oromadoo kale waynagii dee sheegaynay tirooyinkii tarsiimada 2 3 4 5 6 7 in iyaguna ay ka mid yihiin marka ereyadaas asalka ah dee waa ereyo asal ah magac bixinta qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa xeerudhalan baa la yidhaahdaa qaarkoodna waa ereyo lasoo ergistay oo ammaano ah oo ama xigasho ah marka sidaas ayuu afka soomaaliga ereyadiisu uga kooban yahay waxyaabaha faraha badan leh ee kala gedisan ama ereyada faraha badan ee meelaha kala gedisan ka soo jeedaya afka soomaaligu wuxuu kobcii ugu ballaadhnaa iyo koritaankii ugu faraha badnaa sameeyey sanadkii 1972 waxaa soo kordhay kumanaan kun oo erey cid kasta waxaa loo diray inay magac bixin u samayso wixii markaa ay shaqada ku haysay hadday tahay ciidanka hadday tahay sayniska hadday tahay maamulka cid walbaaba waxaa la yidhi inaad erey bixin samayso afkeenu barigii hore wuxuu ahaa mid ku habboon demiga oo nolosha reer guuraannimada marka waxaa lagaga maarmaan noqotay in aqoontiina erey bixin loo helo allahu naxariistay abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye oo nooga sheekeeyey siday ku yimaadeen qaar fara badan oo ka mid ah ereyadii ay u baahnaayeen dadkii markaa erey bixinta sameynayay gaar ahaan kuwii saynisku waxaa ka mid ah labada erey ee kisi iyo dhaban sidee ayaa labada waxaynu naqaanaa labada erey afka ingiriisiga odd number iyo even number ayaa la kala yidhaahdaa sidee lagu helay
waxa la waayay cid od iyo even wax ku kala sheegta kadibna gobolladii Soomaaliya oo dhan markii la marayay ayaa ina yaro Kismaayo shax ku ciyaaraya ayaa ama shantarad baa wuxuu haday si isleeg u dhacdo 2 4 6 8 waxaan idhahnaa waa dhaban haday 1 3 5 7 u dhacdana waa kis marka sidaas ayaa lagu qaatay labada erey ee kisi iyo dhaban ereygan kale ee eber ingiriisku wuxuu leeyahay zero carabiduna waxay yiraahdaan maxay sifir qoladii reebooyga markii lagu yiri maxad eber u taqaanaan zero ama sifir waxay yiraahdeen waxba anaga ma soo falay waxba waxay yiraahdeen ciyaalka yar la dilay qoladii reexamarka ahaa ayuu bayri zero sif eber way halkaas la isku qaatay ereyada kale waxa kamid ah cimilo oo kale cimilo afka ingiriisiga waa climate iyadoo guddigu madaxaysto wax alla waxay ku sheegtay garan haday ayaa gabadhii xogeynta wahayd Soomaalida ee qoreysay uunba ilaahay ka abaal mariya reer gabay hayde uunba si qaldan u bay qortay taybin erro halkay climate ka qorleeyin bay cimilo qorto taaba u daayun baa leeyay marka climate na taybin erro ka soo laga qaato waa ayaan dairy insect baaf ingiriisiga lagu yiraahdo Soomaalida leeyay maxaynu u bixinaa ayaan dabeyto mid reer gaba wuxuu yidhi inuu bixino bararafley oo maxad ya bararafley de wuxuu yidhi waa kii gabay sayidka abu halkan ka soo qabsay mooyinu jireen kale wuxuu yidhi oo sawkii sayidku yidhi kama baqo wixii baala iyo bararafleeyahay oo cayaanka oo dhami miyuu duulaa injirtu miyuu duushaa waxaan kaadi baa leeyahay nin ka tirsan marka guddiga yar bixinta oo gobolada dhexe Soomaaliya ka soo jeeda ayaa wuxuu yidhi anagu cayayaan baanu u naqaanaa sidaas oo kale ayaa iyadana loo qaatay ereyada kale ee wanaagsan ee xilliga erey bixinta la isla qaatay waxa kamid ah ereyga koonfur reewqooyigu ma laha erey u dhigma south ama junub oo waxay adeegsan jireen kelmadda hawd oo dhulna noqoto de gobolka hawd oo kale hawdo barwaaqa igada dul joogta ay hibiti qayso marka hawdku dhulna uu noqdaa jahno uu noqdaa qolada shay koonfurka ayuunba simbali ama si fudud waxay u keeneen oo yiraahdeen anagu ereyga waxaan u naqaanaa koonfur idana sidii lagu qaatay qolada reewqooyi qudooda ereyo badan oo wanaagsan way keeneen oo erey bixinta waqooyi koonfur labadaba waa laga soo qaadanayay dadkii la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba halkan waxaan ka xusayaa Abwaan Saciid Ibraahim Dool mujaajilaystaha caanka ah gabayaaga ku nool magaalada Hargeysa ayaa wuxuu yiri oo erey bixin u sameeyay laba ereyada afka Soomaaliga ee dhaladka wuxuu bixiyay xeer dhalan yihiin kuwa kalena waa xigasho kuwa qalaadina waa maxay waa xigasho tusaale ahaan ereyga xeer dhalanka ah waxa la micneeyaa ama isagoo isku dhan ama isagoo ah markuu isku dhan yahay ereyga la micneeyo waxa loo oranayaa waa isagoo caleen ah baa la micneeyay tusaale ahaan ereyga biyo marka la micneeyo waa biya waa la oranayaa waa kuwii haraadka uska jinaabada waxa soo dhan biinay ereygii xeer dhalanka waxa la micneeyaa mar isagoo ah caleen oo isku dhan marna waxa la micneeyaa isagoo qurub ah oo la qaybqaybiyay marka ereyga xeer dhalanka ama asalka ah tusaalahan ee la qaybqaybinayo waxa kamid ah abwaan oo kale abwaanku wuxuu ka soo jeedaa laba erey waa ab oo ah aab ama isir iyo waan oo ah waano waa aabihii wax sheega aabihii hoga tusaaleynta ayuu noqonayaa way ereyga xeer dhalanka waxa la micneyn karaa ama isagoo isku dhameystiran oo caleen ah ama isagoo la qaybqaybiyay oo qurub ah ereyadayna gaga yimi afka qalaad iyaga lama micneyn karo waayo awalba meel kale ayay ka yimaadeen
marka maantana halkaas ayaynu ku joojin doonaa waa inoo casharka saddexaad iyo haddii eebba idmo geedii waxyaabihii oo meelahaynu soconay waa qeexidda suugaanta haddii eebba idmaayo. asalaamu calaykum waraxmatullah.